waxaa xiligan kulan albaabada u xiran madaxtooyada galmudug ugu socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. kulankan oo ah kii u horeeyay oo fool ah oo ay yeeshaan Farmaajo iyo Axmed Madoobe tan iyo markii la isku khilaafay doorashadii Jubbaland ee Axmed Madoobe dib lagu doortay iyo tallaabooyinkii ay dowladda federaalka qaaday ee ka dhanka ah Axmed Madoobe. kulankan ayaa ka socda xarunta madaxtooyada galmudug ee Dhuusamareeb uu degan yahay madaxweyne Farmaajo, waxaan uu ka dambeeyay dadaalo tan iyo xalay la waday oo ah sidii la isugu keeni lahaa dadaalada uu kala dab qaadida iyo isku keenida madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa waday ra'iisul wasaare Qeere, madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo mar dambe ku soo biiray dadaaladan. caqabadaha ku horgudban furitaanka shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa kamid ahaa khilaafka siyaasadeed ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe, waxaana hadii la dhameeyo khilaafkaasi waxa uu noqonayaa tallaabadii koobaad ee loo qaaday sidii uu jawi wanaagsan ugu furmi lahaa shirka.